baarlamaanka waa ka soo fasax qaatay ilaa bisha 20 December kamaan fasax qaadan baarlamaanka anigu tigreegan iska soo goostay waa iska soo waxaan uga soo noqdaynaa anu jaamacadda sabbatical leave baan ku jiraa. I could have stayed until September if not more, laakiin waxaan uga soo noqday to a certain extent aniga qalbigayga hoos u dhacay. laba amurood hoos ugu dhacay hadda dhageysta aanu si wanaagsan isku maqal waxa qalbigayga jirintiisa kamid ahaa for the first time in my life lixdankii madaxan gali ugu yaraan 30 sano ma waa kolka waa iska waa casr baa la joogay لكن حج 30 سنوات waxbaan ka qoriyay wadanka ilaa Soomaalidu waxay tadaa haday foortimaado guud qarsiima hadhay for the first time in my life waxaan soo arkay nidaam taaban arinta waxaan soo arkay marka la eego political class ma dadka masaakiinta caadiga ah dhalinyaradan jaamacadahan ka hadlay 450 baa yimid and they ask you excellent questions. لكن dadka siyaasadda elite markaan soo arkay meesha for the first time in my life waxaan soo ogaaday layguna yidhi inaan ahay qof Somaliland ayaan soo ogaaday oo marka la isku galeen la wada hadlay leadershipkii arrimaha laga wada hadlayo ee meel loo dhaqaaqo la waayo lagu go'nay inta goor laygu yidhi anigu baa tirin kara I have it in my notes laygu yidhi wardeydinku waad maqantiina deen laga daayay hadalka waad maqantiina dadka dhageysadii waad maqantiina deen laga daayay hadalka waad maqantiina dadku in other words sheekada soo kulaan oo halka soo fadhiisan laakiin de guntaha soo gali waad maqantiina taan soo ogaaday waxaan soo ogaaday inay laba leedahay laba jaranjarada hore waxa weeye up to a certain point mid loo garaabi kara hadalkaas waayo degmadan ka yimid gobolka Somaliland waan baxnay ayaa la yidhi so one can make that argument anu inkastoon by the way and I think I'll waan isku raaci karnaa waan filayaa anu aan aaminsanahay Somaliland nooli wax badan bay qabsadeen oo wanaagsan wax badan oo wanaagsan bay qabsadeen haddii aan la garan oo la qiran oo meelba laga sheegin wanaaga ay qabsadeenna la isku ma soo noqon karay. You have to be very clear about this. taasi ma aha wax walba way hagaagsan yihiin oo arrimaha cali ka hadlay waan ku raacsanay oo dhibaatooyin badan baa yaala oo degmada yaala laakiin marka loo qiyaaso ummadii kale siday tahay anigu waxaan qabaa at least I will make that argument in public waxaan qabaa inay ugu horeyso wax badan oo wanaagsan qabsatay oo kamid tahay qarannimada Soomaalida isku keenkeyga in dadkii ka yimid waqooyigu mas'uulka ahaayeen inteeda badan baan ugu qabaa wada garmis laakiin waxaan soo ogaaday magaalada Muqdisho markaan tegeen arkay dadkii siyaasiyiintii ummadii meeshan arkay waa lagu soo dhaweyn sharaf wanaagsan waa la soo professor Kennedy baa lagu oran all of that nice laakiin marka la isgalo qof waqooyi oo bad noqdo waataan hadalkeedin ku dareeray anu markii dambe waxba ay soo gaadhay warwada meeshan wallahi qof ajnabi ah baan ahay dibadda eegto oo dadkii aniga ila socdeen walaalaha yahay reer South-ka ahay xamar ku dhashay ee xisbiga la gula jiray ee na taageerayay ay markii dambe yimaadeen Axmed oo arintan laga ma adkaan karo ma wadiga arkay soo dagarmis taas waa mid waxa kale oo soo ogaaday I'll be blunt with you an waayo da'da hadii la garo waxaan la soo arkay sheekada way dhaaftay waxaan soo ogaaday I could be wrong laakiin waxaan soo arkay waxaan soo ogaaday adeegada oo la igu yiri madaxweynaha wadanka waqtiga haya Shariif afkiisa uu iga yiri wuxuu igu yiri Shariif let me tell you this quickly wuxuu igu yiri waan wada hadalnay waxaan isku darsanno campaign-kan wada galno oo aynkaas dadka in badan baa ka baqaysay markii hore warsamadana professor wala yaqaana dirkiina isaga ka socda dirkii wala hore malaha hadda halka soo galaan wax weyn bay qabsan doonaan waxa suuqa la geliyo waan saragnay xafiiska madaxweynaha waan gurigiisa wada sheekaysan wuxuu igu yiri and I can see his strategy it makes sense laakiin from my point of view waxa ay cadaysay arintan ka hadlay wuxuu igu yiri ummadda Soomaalidu ilaa maanta this is a quote waxay ku noolayd oo halka ku soo gaadhay
sabirka dadka dirka la yidhaaho. This is a quote. sabirka dadka dirka la yidhaaho ayaa halka kusoo gaadhay. nimankaa daarooda qaylada badan la hala siiyo sidii la siin jiray. This is what he said. This is a quote. It's a quote. marka adiguna maxaa ra'iisul wasaare ku xigeen wasiirka khaarijiga waxa noqo aniguna 4 sanadood marka hadan madaxweyne noqo ayaa ku dhisi doona dagaal markaas aynu bedeli doona arrimaha. Every one of the major candidates, listen to this, every one of the major candidates, amba direct how you know, Sharif waxaan ku jeclahay direct one, amba si maldahana loo yidhaahdo qofka qura arinta ka talaabsaday yiri ma we can do different things wuxuu ahaa Abdiwali, Dr. Abdiwali is the only one. yiri hore u dhacday in maxaan ku raayay la isku dardaro oo Cabdirashiid iyo Maxamed Ibrahim galbo waa ku israacay. Why not now? inta kale xitaa taariikhda ma garanayaan badde sida waxaan uga jeedaa in soo qalbi jabiyo waxa weeye midowaa reer waqooyi baan noqdo. I have seen this. waxa kaloo qalbi jabiyo nin diraan noqdo oo waliba leeyahay dirkii dib way maqan yihiin oo daysaaqii bursiga iyo ciisi way maqan yihiin inta kale dirka koonfur joogtaana ya they are alone halkan ay kaliyo joogaan marka sheekada kuma jiraan. dhagiso labada amuurood baan arkay. labada amuurood markaan arkay how do you respond to this ayay jawaabteedii noqotay. kolka waxaan isiri dib u noqo soo xisaabtan maskaxdaadii ka soo shaqee soo dhagays soo xisaabtan markaa amba dee la soo noqo adiga oo more confident kalsooni dheeraada ku qaba Soomaalinimadaadii inaad wax ku doonato oo maaragtay wadankii baarlamaanka inta hawsha qabto and you renew your confidence. iyo inaad tidhaahdo wallahi malahi arintaas ma soconayse waa inaad kurubka meel kale ka baara halkaas aan taagnaano. قدري